dhiibay 6 caruur ah oo ay lahaayeen ninkaasi xaaskiisa ku dhagaroobay ayaa la sheegayaa inay la wareegtay dawladda Norway. Dilkan ka dhacay meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Oslo ayaa argagax ku reebay Soomaalida dalkaasi degan. Haddaba Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaa khadka telefoonka waxay kula xidhiidhay Maxamuud Cali Bulaale oo ninkaasi dilka geystay uu shalay u keenay 2 kamid ah caruurtiisii markii uu xaaskiisa dilay kadib. anigu waan yara xanuunsanayay waxaan leeyahay sokor marka waan yar xanuunsaday dhaqtar baan tigi isoo wacayo wuxuu yiri xagaad joogtaa gurigiisa cidima joogtaa gurigaagii marmay iskuulada ku wada maqan yimaan ku wada ciyaalkina islaantuna way shaqaysaa aniguna dhaqtar baan tigay maanta dabeedna de guriga cidima joogta baan ku yiri maxaa guriga ka soo galay adiga dabeedna wuxuu igu yiri gabadhii baa iga xanuunsatay waa xaaska marka ha 3 jeer 4 jeer buu soo wacay kolba war waxaan ku didijay alla urdisa waa maxay baan ku dawaan qaadanaya dhaqtarkiyo dawadii la soo qoraa soo qaadanaya farmasigan ku jira 2 qof ayga horeeyay dabeedna aad ugu baahnay soo baxay igu yiri waxaan doonayaa inaad caruurta iga reebto cid kale iga reebta ma jirto dadkii uu wada maqan yahay caruurii iskuulada ku maqan yihiin iyo dumarkii dabeedna guriguuna keenay dabeedna waxaan arkay inantii aan kabayo sharabaad iyo mariyo tii dhaxanta gashanayn dhulkana baraf baa yaal waa gartay dabeedna waxaan ku yiri war sidee wuxuu jiraa niyow dabeedna wuxuu igu yiri markii gabadhii islaanti xanuunsatay ay cayn ka noqotay oo si loogu dhufto maskaxda ay ku dhufatay oo way dawaqtay oo sidaas ay noqoto dabeedna waxaan ugu yeeray qoladii dadka xanuunsaday cayn ka maskaxda u xanuunsaday la geyn jiray baan geeyay dabeedna ma halin buu intan iyada ku mashquul ahaa ana soo qaadiyo barafka socon mayse adigu kan kale daadee dabeedna nin taksiila baa soo wacay oo aniga yoogeysiiyay arrinta oo uu sheegay dabeedna wuxuu yiri labadii inana iskuulka hoose dhigan jiray gabadhii waan dilayay yaanay iskuulka tagina soo qaad buu yiri labadii kalena bulaalaan u geeyay marka bulaale gurigiisa isugu wada geey waxba ninkii wuu naxayo wuu soo waco war arrinta miyaad wax ka maqasho maya baan ku yiri caruurta iga reeb buu yiri gabadhii waa xanuunsanaysa dabeedna ninkii arrintiisii baan markuu intaa ii sheegay aan ku yiri ma xaqiiq ba ayuu yiri ha goorma kuugu dambeysay intuu caruurta ku keenin ka hor goorma isugu keen dambeysay aragti ahaan de maalintii ka horeysay baanu maqaada Soomaalida isugu soo galnay oo de waxba salaamu calaykum buu leeyahay dabeedna qol waad fadhiistay miis kale haye marka ila muu soo hadal aniga mar dambe wax xanuunood ku ogeyd miya jirtay taariikh ahaan wallahi dadku maryuhun bay sitaane inagu ninka waalan waxaynu naqaano ninka maryaa bixiye anigu waxaan u haystaa dad badan oo maryaha gashan inay waalan yihiin marka waxaad isleedahay xanuun baa u qarsoonaa miyay kula tahay ninkan xanuun baa ku qarsoonaa baan isleeyahay ama hiddaha noqdo ama isaga ha hayo de ma laakiin damiirka siiyay intaas oo caruur adigoo haysta gabadha dil aniga waa wax iga cajiibsan guud ahaan caruurtu waa imisa waa 6 imisa jir baa u weyn ka 18 iyo dhowrka bilooda imisa jir baana u yar de taa 2 sano jirtay imika u socoto labadu waa gartay 6dii caruurta ahayd hadda yaa gacanta ku haya markaa de waxa ku haya qoladii caruuraha qaadan jirtay oo adigii lagu dhibayna ma laga qaaday de soo markiiba bilayskuna weeraray markay ogaadeen waa gartay marka caruurtii oo dhan booliska hadda qaatay caruurtii oo dhan bilayska ayaa dabeedna islaantaydi sidii uu gamay hadin caruurtii way raacday haye iyo inaan dhalo weyn oo xaas leh waa gartay labadii baa dabeedna caruurtii wili ku mashquulsan xalayna waxay yiraahdeen markay ay noo diidaan aan kulli aan qaadano he way ka haysteen oo dabeedna waxay hodeel baan u kiraynay marka hadda doonayso inaan nagu caawisano waa id caruurtu weydina goliyeen islaantay inaan heen adigu waa gartay dabeedna raac baan ku yiri marka hadda caruurtii wali ma hotelka ay ku sugan yihiin mise booliska haddana meel kala geeyay may hotelka ku sugan yihiin oo dabeedna saaka naloo yeedhay haye saaka interview la yeesheen oo dabeedna aniga islaantaan ila caruurta anaga haynayna inta cid loo helayo ama ehel ama dadkooda dad muslimaan nahay ma doonayna inay meel kala galaan caruurtuna way noo gashay yaanu hayno waa gartay marka idinka la soo baaraya bay yiraahdeen bileyskan u dhiirina waraaqihina inay idinku dambi gasheen ama qolada caruuraad dambi ka gasheen ama imisa caruuraad wadatay adigu marka dhulka timid marka 9 ba anigu 4 ku dhashay Norway iyo 5 horaan wataan marka waxa la soo baarayaa in aad horay dambi u soo gasheen oo caruurta la idinku aamini karo iyo in kala baa la idinka baaraya waa gartay marka ma isleedihiin adinkana waxa la soo heli doonaa bayana waddanka dambi kama aan gelin caruurna iskuma aan qabsan cid waayo 9 caruuran ku koriyay imika kaw yar waa 14 marka dad walaaladii ma jiraan isaga oo la dhashay gabdho ama wiilal ingiriiska joogan way jiraan qaarna Soomaaliya jiraan qaarna ingiriiska joogan laba nin walaaliyoon mid doctor yahay baa jooga ingiriiska iyo xaasaskoodii waa gartay markay xaaladda maqleen ma wada hadasheen waan wada hadalnaa caawa madiina imanaya 12 haye ka kalena fasax baan soo qaadanaya waa doctor ka shaqeeya doctor waa gartay markaan isaga dib ugu laabto isaga booliskii baa hadda qabtay xaaladiisa maxaa nooga sheegaysaa isaga isgeeyay bilaysku warka waxay ka soo daayeen isaga u tagay
maca shandadiisii iyo ilaa cadayiisii wuxuu ku ritay shandad oo gaadhiga saaran uu la soo degay. waa gartay marka sidaad wararka ku helaysaan booliska ma warayseen oo waxa ku khasbay in xaaska 6 carruura u haysta uu u dilay wax ma laga weydiiyo ma hadla maya dee war ma hayno isagiiba mana aragna lama hadal loomana ogolo waa bilaa booqasho markuu qofku wax dilo intaasoo casho lama soo booqdo lama soo siyaarto marka waxba kaagama sheegi kara xitaa annaga gabadha muxuu ku dilay markaanu nidhi waxay yidhaaheen waxba warbixin ma siin karno imika ilaanu ka dhamaysano marka idinka khilaaf hore u dhexeeyey iyo wax u eg in uu ninkani wax dili karay ma idinkaga muuqdeen ayo gabadha ka caban jirtay oo dhowr jeer baaba ay ka soo carartay aanu dabeedna muslax galnay oo dhowr sano horteed bay ahayd 2009 haye xilligaasay dabeedna waxaan ku reerkaaga iyo carruurtaadan ilaashaba markaa taa yar un baan jirin marka xilliyada ay soo cararayso waxyaabaha ay qoonsatay gurigeeda ay uga soo tagtay ma ka hadasho xilliga waan ku dilayaa un buu yidhaaha way tidhi haye walle kow baan kaaga siinayaa markaa dee kow baan kaga siinayaa ha laiga kaxeeyo maxaad ka hadlaysa ma ku tirahdeen maxaa ka hadlaysay baanu ku nidhi wax alla waxaan ka hadlayay ma jirte isagaa malaa buufis qaba bay tidhi haye marka iminka gabadhii inuu waalaabo ugu talagalay isagu dee meel buu wax ka arkay wuxuu ku yidhi dhakhtar buu xitaa geeyey oo iminka yaryarkiisu ii sheegeen maanta markii aan ugu tagay meesha hooyada iyo dhakhtarkuu geeyey bay igu yidhahdeen oo markaasuu yidhi way waalan tahay hala baadho dhakhtar psychology baa loogu yeedhay dabeedna wuxuu yidhi qofka maskax wanaagsan waa yarye marka isaga ma la baaray oo ma la isku dayay dabeedna markay soo ogaatay waxay tihi ninkii hala igu yeedho dhakhtarkii isagana hala baadho dabeedna masuubaduma waxay ka kacday waad ifadeexadisay oo hala baaray ninka maxaad u tiri ninka hala baadho maxaad u tiri iyo adigu bay igu yidhi halagu baadho intaas bay arrintu ka kacday yaryarku noo sheegay in lagu soo kordhiyeen kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali bulaale oo ku sugan dalka Norway isla markaana aqoon u leh nin shalayto ku dilay xaaskiisii dalkaasi Norway iyadoo u lahayd 6 carruura kadibna booliska isku dhiibay